maanta waxaan soo gaartay geeri xanuun badan oo ka dhacday degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan dhammaan tacsi tiiranya leh xanuun badan u dirayaa dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed oo ka tirsanaa gudoomiye Cali Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo ahaa gudoomiyihii degmada Marka, horeyna u ahaa xildhibaan qaran. Waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto gudoomiyaha iyo intii kale oo mas'uuliyiin ah meesha ku geeriyootay. Qaraxaas waxaa geystay kooxaha arxadarrada sameynaya dalka shabaab. Qarax midaaman oo ahaa, marka waxaan leenahay Ilaahay jannadii firdaws Ilaahay ha geliyo gudoomiyaha iyo intii kale oo mas'uuliyiin ah iyo askartii meesha ku geeriyootay maanta. Ka gudoomiye Cabdullaahi Abshir ahaana tacsi u dirayaa, guud ahaanna gudoonkana tacsi way direen. Dhammaan waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed dadkaas dhibaatada geysanaya waa soo bateen, waa in meel u soo wada jeesano aan wadankii islaaxino si ay u yaraato dhimashada ay maalin walba ay sameynayaan ama dhibaatada ay wadanka ku hayaan. Marka intaasaan rabaa inaan kusoo koobo tacsidaasna. waxaan leeyahay Ilaahay samir iimaan Ilaahay naga siiyo, ehel iyo qaraabiyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. waana mahadsantihiin.